السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا مهيستان جنال ما انتو waxaan idin soo gudbin doonaa mowduuc cusub oo ku saabsan sidee qofku ku siyaadin karaa kalsoonida naftiisa. fadlan hadaa ku cusub tahay janaalkeena subscribe saar gabalaalkana furo mahadsanid. dadka oo dhan waxay ku dadaalaan in ay kasbadaan kalsoonida naftooda si ay ugu guuleystaan xaqiijinta himiladooda iyo riyooyinkooda. kalsoonida naftu waa aasaaska iyo bilowga wadada saxda ah. haddaba sidee ayaad ku siyaadin kartaa kalsoonida naftaada? kow, samayso saaxiibo wanaagsan. arrimaha ugu waaweyn ee qofka ka caawiya inuu kordhiyo kalsoonida naftiisa waxaa ka mid ah isagoo samaysta saaxiibo wanaagsan. saaxiibada wanaagsan waxay kaa caawinayaan in aad ku guulaysato xaqiijinta himiladaada. haddaba waxaa kugu waajib ah in aad ka fogaato saaxiibada xunxun. saaxiibada xunxuni waa kuwa aan ka caawin howlahaaga in aad ku guulaysato. labo, naftaada dhiirigeli. hadallada aad naftaada ku tiraahdid waxay saameeyaan kalsoonida naftaada. tusaale ahaan, haddaad ku fashilanto in aad ku guuldaraysato hawl, ama aad imtixaan hooseyso, ama mansab aad gaari weydo, waxaa hubaal ah in aad naftaada kula hadasho erayo niyad jab ah sida waan guuldaraystay, mar dambe iskuma dayi doono, darajada ma gaari karo iyo qaar kale. hadalladani waxay saameyn ku yeeshaan qofka kartidiisa. haddaba waxaa kugu waajib ah inaad naftaada mar walba dhiirigeliso, kelmado wanaagsanna aad kula hadasho sida waan awoodaa, waan gaari karaa darajada, haddaan mar guuldaraysto mar dambe ma guuldaraysan doono. saddex, ilaali muuqaalkaaga. muuqaalkaaga wuxuu si weyn u saameeyaa kalsoonida naftaada. waxaa kula gudboon in aad mar waliba ku labisato dhar xargo badan, ilaalisidna nadaafadda jirkaaga iyo dharkaaga. markasta oo aad hagaajiso muuqaalkaaga waa markasta ay ku kordho kalsoonida naftaada. afar, akhri buugaagta. haddaad jeceshahay in aad kordhiso kalsoonida naftaada, isku day in aad akhriso buugaag badan, gaar ahaan kuwa ka sheekeeya toosnaanta qofka, wacdiga, diiniga iyo horumarinta qofka. shaki kuma jiro in akhrinta buugaagta ay saameyn la taaban karo ku leedahay kalsoonida nafta. shan, raadi isbeddel joogto ah. adduunkan ma jiro qof dhammaystiran oo aan lahayn dhaliil ama ceeb. dhammaystirku ilaahay keliya ayuu u sugnaaday. haddii lagu dhaliilo ama lagu sheego ceeb aad adigu leedahay, haddaba waxaa kugu waajib ah inaad beddesho habdhaqankaaga. halkaas ayaan kusoo gabagaban doonaa mowduucani maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.